xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo soo gaaray magaalada Kismaayo maalinimadii shalay ahayd ayaa waxa uu maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ka areemiya uu gabi ahaanba wasiirada ka horjoogsaday inay gudaha u soo galaan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. wafdiga ayaa wasiirada sidoo kale waxa ku wehelinayay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa oo qaarkood lagu soo waramayo in loo soo magacaabay jogooyin xagga ciidamada xoogga dalka ee gobolada Jubbooyinka. isku dayo ay wadeen odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo taa oo lagu doonayay in wasiirada ay gudaha u soo galaan magaalada Kismaayo ayaa waxa gabi ahaanba ka soo horjeestay madaxweynaha Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa koobaad Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. madaxda maamulka qaarkood oo aan xiriiro kala duwan aan la sameynay ayaa sheegay inaysan ogoleen in wasiirada ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo balse taa ay suurageliyeen ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Kenya. shir degdeg ah oo ay maanta isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada Jubbaland ee Kismaayo ku sugan ayaa waxa saaka looga hadlayay suurtagalnimada in wasiirada haatan ku xaniban garoonka Kismaayo ay soo galaan magaalada gudaheeda, taasi oo ay ugu dambeyn isku raaceen wararka sida aan ku helayno in gabi ahaanba ayna soo gelin magaalada Kismaayo. qaar ka mid ah saraakiisha kulankaasi ka qayb gashay oo TV-ga Universal la hadlay ayaa sheegay in xildhibaanada iyo saraakiisha hore u joogtay magaalada Kismaayo ayagana awaamiir laga soo saaray taa oo ku aadan in si degdeg ah ay magaalada looga saaro. si kastaba xaalku ahaadee waa wafdigii ugu ballaarnaa ee ka socda xukuumadda Soomaaliya oo loo diido inay soo galaan magaalada Kismaayo, waxaana la filayaa in dib ay u laabtaan wafdiga wasiirada ee sida ay sheegeen mas'uuliyiin maamulka Jubbaland. dadka siyaasadda oo darasa ayaa sheegay in talaabadani uu qaaday maamulka cusub ee Jubbaland ay tahay caqabad aad u weyn oo dowladda Soomaaliya ay la kulanto marka laga soo tago la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ee koonfurta dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdi Caynti.